naxariiste Najma Cabdilaahi Meykal ayaa habeenkii xalay ahayd gacan ka xaq daran ku dishay magaalada Hargeysa. Najma waxay ahayd gabadh da'yar oo shaqaale ka ahayd wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland. Waxaanay si gaar ah rafiiq u ahaayeen agaasimaha xuduudda shaqaalaha ee wasaaradda beeraha Somaliland, Yaasmiin Xasan Saciid Dirir, oo tacsi u diri doonta eheladii qaraabadii iyo cid kasta oo ay ka baxday Najmi. kusoo dhow telefishinka CBA. ilaahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan halkan tacsi tiiraaya leh uga dirayaa anigoo ku hadlaya afka shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeraha Najma Cabdilaahi Maxamed oo gacan ka xaq daran ku dishay xalay tole magaalada Hargeysa. waxaan si gaar ah uga tacsiyadeynay eheladeedii iyo qaraabadeedii, gaar ahaan hooyadeedii iyo aabaheed iyo walaalaheed iyo dhammaan inta garanaysa muuqeeda. waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto, ilaahay marti la jecel yahay ka yeelo. wax kale oo ma qaban karnaa, waynu ducaynaynaa. waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto Najma. agaasmi Yaasmiin, allah u naxariiste Najma oo maanta sidata magaca meyd shalayna ahayd loogu yeedhay Yaasmiin Najma Cabdilaahi. waxa ay dadku sheegeen in bishii hore meherkeedu dhacay, aqalgalkeediina loo ballansanaa bacda ciidka, maadaama wada ahaydeen dadkii iskugu dhowaa marka shaqaalanimada aad ka wada shaqaynaysaan wasaaradda iyo mas-uulnimada aad u ahaydba laga imaado. maxaad kala socotay arrimi? ilaahay ha u naxariisto marxuumadda. maanta waa marxuumad way naga hooseysaa. bishii dhaweyd bay meherkeedu ahaa. siday ii sheegtay aqalgalkeedii marka haddii la haydhaa bishan Rabadaan ciidda wixii ka dameeya way aqalgalaysay oo hawshii guriga ku dhex jirtay. ilaahay ha u naxariisto. marka aqalgalkeedii arooskeedii bay imika u diyaar garoobeysay. waxaan tacsi tiiraaya loo diray hooyadeed iyo aabaheed iyo dhammaan eheladeeda, walaalaheed, oo leeyahay ilaahay qalbiga ha idinka reebo, iyadana ilaahay ha u naxariisto. Najma oo habeenkii xalay ahayd lagu dilay magaalada Hargeysa, kiiskeeda waxa ku haya laamaha amniga ee arrintaasi khusayso. wixii warare ee ka soo kordha arrinta Najmana waxaad kala